الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أطبان دي السلامي. سؤاله اللي يسويدين يمحي هاين وحي هاين اللهم صل على محمد ومحي فرق قول حيا حديث القدسي يو ما قرنا ساي حديث ك حديث النبوي يا قرآنك waayahay su-aalahaas baynu ka jawaabi doonaa. jawaabtii koobaad waxaynu eegaynaa bal jawaabta ay kaga jawaabtay Zaynab Maxamuud Awad. markaa su-aalahaas waxay yihiin xadiiska laba jeera iyo qur-aan kariimka. allahuma salli calaa maxamed. qur-aanka xadiiska caadiga iyo xadiisul quduska waxaa u dhexeeya waxay yihiin xadiiska caadiga nabi maxamed markii calayhi salaatu wasalaam ilaahay usoo dhiibay waxa weeyaan wuu micneeyey carabidiisii baanu ku micneeyey oo uu ka hadlay. xadiisul quduska laakiin sidii loogu soo dhiibay ayuu usoo gudbiyey, wax tafaasiira kama bixinin. waayahay jawaabtaa koobaad baynu eegaynaa. waxay tidhi xadiisul qudsiga sidii loogu soo dhiibay buu usoo gudbiyey. marka waxa weeye waa toos weeyaan xadiis alqudsigu. jawaabtaasina waa sax weeyaan. allahuma salli calaa maxamed. waxaynu eegaynaa jawaabta labaad. xadiis alquduska iyo qur-aanka kariimkana waxaa u dhexeeya waxay noqonaysaa qur-aanka kariimka dee ilaahay baa lagu caabudaa subxaana wa tacaala, laakiin xadiis alquduska ilaahay laguma caabudo. sax. jawaabtaa labaadna waa sax. xadiis alqudsiga ilaahay laguma caabudo. waa khabar iyo war. haddaad intaad salaad xidhato xadiis alqudsi akhrido salaadaadaas waxba kama jiraan. ma arkaysaa waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. ma garanaysaa salaadu ma jirto man laa yaqra bifaatixati alkitaab, qofka aan akhriin faatixada ma garanaysaa salaad uma jirto. bal aynu eegno jawaab saddexaad. saasay sax ku tahay baan u malaynayaa. waxay dee tahayna insha allah wadaadkiina soo dhigay bas uu sheegi doona. aad iyo aadna idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحين يجينا dadka kale iyaguna ka jawaabay. ilaahay khayr iyo xasanaad ha siiyo eedo way dadaashay wayna ka jawaabtay. marka bal jawaabta labaad baynu isla eegaynaa. waxaa ka jawaabay jawaabtii labaad khadar. kalaamkii ilaahay xadiisul qudsi waa kalaamkii ilaahay oo aan dee magaranaysaa waxa weeyaan dee aan qur'aan ahayn laakiin dee kalaamkii ilaahay ah. sidaa darteed magaranaysaa waxa weeyaan wixii xadiisul qudsi yahay dee qur-aankaas buu ayuu waxa weeyaan sidaa uu magaranaysaa wixii xadiis ah xadiisul qudsi yahay uma baahanaba magaranaysaa waxyaalo kale. waa kalaamkii ilaahay ayuunbaa loo qaadanaya xadiisul qudsiga. waan gartay. wuxuu leeyahay xadiis alqudsigu waa kalaamkii ilaahay. isaguna halkaasuu kusoo gabagabeeyey. waa sax weeyaan, laakiinse maxaan ku dhahdaa hadalkii ilaahay qur'aanka ayaa ah. hadalkana waxa weeyaan waa khabar nebigu ayaa noo khabaraya. ma garanaysaa hadduu toos hadalkii ilaahay u ahaan lahaa waxaan filayaa in lagu tukan lahaa, marka salaada ayuu aqbali lahaa. marka waxa weeyaan culimmadu way ku kala baxeen. bal jawaab saddexaad horta aan dhegaysano intaanan anugu soo gabagabaynin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صاح حديثك أما يا إن كان يدنا السلام عليكم وهي عبد وان سلام يا إن كان يدنا وهي عبد الرحمن. سؤال بو هل كان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شاسي وحي كورانا صاح حديثك يا قرآنك حديثك عادي يا قرآنك يا حديث القدس فرق قول حيا وامحي هدي لا إن شاء الله أنا كجواب حلقة يا بينك كقوليستي وأقول له أنا يورانيسا كجواب قرآنك وهذا الكيلهي. مرحبا. حديث عادي كنا وحديث النبي كسرنا هذا عليه الصلاة والسلام. مرحبا. حديث القدس كنا وكي النبي محمد إياه إلهي كوا هذا اللي وحديث كمدي لكن حديث محيط كلام ما إلهي يا النبي محمد كوا هذا عليه الصلاة والسلام. حديث القدس. وانقرت. حديث القدس مياه. حديث القدس. القرآن كنا هو هذا الكي إلهي. حديث كعادي كنا هو حديث كي نبي محمد. صح. أوكي. محيط النبي محمد كسرنا طيوية. جوابين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
jawaabihiina way isku dhow yihiin su-aashanna maaha inaga oo qura cidda isweydiinaysaa telefishinada ma garanaysaa carabta waddanka sacuudiga way ka socotaa dadku way soo weydiiyaan ma garanaysaa culimadaa la weydiiyaa ma garanaysaa caalamka o dhan baa laga soo weydiiyaa barnaamijka su-aalaha barnaamijka baro diintaada telefishinka alraxma telefishinada kale ee sacuudiga wadamada carabta gebi ahaanba su-aashan waa la isweydiiyaa marka waxa weeyaan jawaabta culummadu way ku kala duwan yihiin qola waxay tidhi waxa weeyaan waa hadal xadiis alqudsigu hadal toosa horta xadiiska caadiga marka hore aynu isla meel dhigno kow xadiiska caadiga ahi waxa weeyaan wax nebigu afkiisa uu ka yidhi calayhi salaatu wassalaam iyo wax ma garanaysaa la arkay oo saxaabadu ay arkeen isagoo samaynaya ma arkaysaa waxay arkeen isaga oo samaynaya waxaa ka mid ah sutrada oo kale markuu nebigu tukanayo calayhi salaatu wassalaam waran uu leeyahay ama seef uu leeyahay buu soo qaadi jiray dhulkuu ka taagi jiray ma arkaysaa ama shay kale oo uu haysto sida kooraha ma garanaysaa koorihiisa oo kale ayuu dhigan jiray hortiisa kaasoo kale nebigu ma odhanin ma garanaysaa waxaan dhiganayaa kooraha hortayda ma garanaysaa haddana waa xadiis yacni waa wixii laga arkay isagoo samaynaya ayaa xadiisa tusaale waxaa laga arkay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam in ma garanaysaa aanu markuu madiina ku soo socdo oo kale aanu isla habeenkiiba soo geli jirin magaalada markuu meelaha ka yimaado aanu isla markiiba soo geli jirin magaalada marka yani waa laynoo soo wariyey nebigu sidaasuu samayn jiray calayhi salaatu wassalaam ma arkaysaa nebigu wuu dhoolla caddeeyey waa wax laynoo soo ma garanaysaa yacni waa wax laynoo soo gudbiyey marka xadiiskii wuxuu noqonayaa laba qaybood wax nebiga laga arkay iyo wax nebiga calayhi salaatu wassalaam saddex qaybood weeye weliba xadiiska caadiga ah weeyaan saddex qaybood weeyaan wuxuu sameeyey kow oo laga arkay laba wax lagu ag sameeyey oo uu aqbalay nebigu calayhi salaatu wassalaam iyo kan saddexaad oo ah wuxuu isagu yidhi oo la inoo soo wariyey sida xadiiska inama alacmaalu biniyaat isaguna wamaa yandiqu can ilhawaa baa u taalla meesha markuu arrinta diinta ka hadlayo wamaa yandiqu can ilhawaa iskama hadlayo nebigu xaguu ka keenay ma garanaysaa xadiiska inama alacmaalu biniyaat xaguu ka keenay ma arkaysaa nebigu wuxuu ka keenay qur'aankuu ka keenay hadalkan qur'aankuu ka keenay ma arkaysaa qur'aankana yaa baray nebiga yaa fahamsiiyey macallinkiisii baa fahamsiiyey malakul jibriil baa fahamsiiyey ma arkaysaa ilaahayna qalbiguu ugu duuba ma arkaysaa marka waxa weeyaan xadiiska caadiga ahi waa saddexdaa shay aynu soo tilmaannay aan ku celiyo hadal baan dhex geliyey wax laga arkay nebiga isagoo samaynaya kow waxuu afka ka yidhi laba sida inama alacmaalu biniyaat laba kan saddexaad oo ah wax inta lagu ag sameeyey uu aqbalay qof baa sameeyey uuna aqbalay nebigu calayhi salaatu wassalaam waa yahay tusaale waxa uu aqbalay waxaa ka mid ah ee lagu ag sameeyey allahuma salli calaa maxamed waxaa ka mid ah ma garanaysaa allahuma salli calaa maxamed wuxuu aqbalay waxaa ka mid ah ciyaartii ay samaynayeen ma garanaysaa uu ciyaaruu daawanayey oo uu xaaskiisana daawasiiyey oo ay samaynayeen dhallinyaro xabashi ah oo ah qaabka loogu tababarka oo kale waa tababar bay ahayd wuu aqbalay nebigu calayhi salatu wasalaam marka xadiis weeyaan taasoo kale wuu aqbalay nebigu waa yahay waxyaabaha qaar baanu aqbali jirin iyana waa xadiis
waxaa ka mid ah ninkii salaadiisa xumeeyey salaadiisii buu boobsiiyey sidii la rabay umuu tukan waxa weeye waa xadiis iyaduna waxaanu aqbalina waa xadiis wuxuu aqbalay waa xadiis allahumma salli wuxuu yidhina waa xadiis wuxuu aqbalay waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay wuxuu aqbali waayeyna waxaynu ka qaadanaynaa inaanay bannaanayn inaanay sax ahayn ma arkaysaa waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhina waa xadiis kaas waa xadiiska caadiga qudsigaas soo hadhay culimmadu labay u kala baxeen sidaa loo fahmo culimmadu labay u kala baxeen qola waxay tidhi xadiisal qudsiga kelmadihiisa iyo macnihiisaba allah iska leh subxaanahu wa tacaala jalla wacala qolana waxay tidhi iskama laha ilaahay labadaba ee macnuhu leeyahay kelmadahana nebigaa iskale calayhi salaatu wasalaam kelmadahana nebigaa iskale calayhi salaatu wasalaam sidaasay u kala baxeen marka meesha waxay ka saareen kuwan leh yacni kelmadihiisa iyo allahuma salli calaa maxamed kelmadihiisa iyo allahuma salli calaa maxamed iyo macnihiisaba ilaahay baa leh meesha waxay ka saareen malakul jibriil bay ka saareen waxay ka dhigayaan markaa hadal u dhexeeya allah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday taasu dhici lahaydna oo ay sidaa ay sheegayaan sax tahayna waxa weeyaan waxaa la aqbali lahaa in lagu tukado sababtoo ah waaba toos xataa wasiilo malakul jibriila muu soo marin waa lagu tukan lahaa marka maxaa loogu tukan waayey waxaa loogu tukan waayey bay leeyihiin kelmadaha nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaana rajaxsan kuwa yidhi khabarkan wuxuu ka soo qaaday nebigu allah subxaana wa tacaala kuwaasaa xoog badan marka waa rajaxsan yihin waxaa laga wadaa kuwaasaa xoog badan marka yacni maxaan ku idhahdaa waxa weeyaan laguma tukan karo oo yacni qur'aankum baa lagu tukan karaa marka qur'aankaa ka awood badan xadiis alqudsiga laakiin xadiis alqudsigu muxuu ku jiraa darajada labaad buu ku jiraa bacda alqur'aan darajada koobaad waa qur'aanka darajada labaadna waa ma garanaysaa xadiis alqudsiga darajada saddexaadna waa xadiisyada kale laftooduna waa darajay sii kale leeyihiin wuxuu arkay wax laga arkay isagoo samaynaya kow wax lagu ag sameeyey oo uu aqbalay iyo wax uu yidhi iyo wax lagu ag sameeyey oo uu diiday waaba afartaa ma arkaysaa waxaan filayaa jawaabuhu inay cad yihiin waalcilmu cinda allah wasala allahuma calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا كبقين فيديو إنو ديرانيو تلفزيون هذا أيان دين صار لها هدي بيدن كذا لي هاي انت اسبين كسوق بقبلنا جوابته بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هو خلاص نوقدك لما أنتم بوحى إنه عمل سمي سنينو